tan iyo markii 26 December uu ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ku dhawaaqay inuu dal madax banaan u aqoonsay Somaliland waxaa la isweydiinayaa halka xaalka aqoonsi raadinta Somaliland ku dambeyn doono maxana qaadi doona oo dal kale ayaa labayn doona mise waa dhicisoobi doona madaxweynaha Somaliland oo galabta la hadlay golihiisa wasiirada ayaa sheegay in dalal badan soo raaci doonaan Israa'iil kuwaas oo aqoonsan doona Somaliland kadib hadalka madaxweyne Cirre ee galabta iyo aqoonsigii Netanyahu waxaa soo baxay in Ethiopia ay noqonayso dalka labaad ee ictiraafay Somaliland kaasoo raacaya jidkii Tel Aviv haddaba maxay yihiin xogaha taageeraya hadalhaynta ah in Ethiopia aqoonsanayso Somaliland 14 Oktoobar ee sanadkan waxaa safar diblomaasiyadeed Addis Ababa ku tagay madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Cirro limadii uu la qaatay madaxda Ethiopia waxaa lagu soo koobay in la isku fahmay wixii lagu wada hadlay isla markaana lagu balamay iskaashi ma jirin xog intaas ka dheeri ah oo ka soo baxay xiligaas haddaba markii ay dhammaan banaanka timid in Cirro uu safar qarsoodiyaha ku tagay Israa'iil bilowgii Oktoobar ee sanadkan sida xogaha la haya xaqiijinayaan waxaa soo baxday in la isku xiro Tel Aviv, Addis Ababa iyo Hargeysa 29 Sebtembar maalin Isniin ah madaxweynaha Somaliland ayaa u dhoofay Imaaraadka waxaana uu ka haystay wafdi kooban oo ah wasiiradiisa iyo la taliyaashiisa markii uu toddobaad ku maqnaa dalka Imaaraadka waxaa qayb ka mid ah wafdigiisa ku soo laabteen Hargeysa warbaahinta gudaha Somaliland ayaana markaa tabisay in madaxweyne Cirro uu galay fasax iyo nasasho marka la raaco waqtigii uu Cirro tagay Tel Aviv sida ay baahisay saxaafadda Israa'iil waa toddobaadkii 2 Oktoobar waxaa halkaas lagu soo galay heshiiskii lagu aqoonsay Somaliland kadib safarkii Tel Aviv iyo Abu Dhabi madaxweynaha Somaliland waxa uu maalinkii uu Hargeysa yimid 13 Oktoobar maalinkii xigtay safar ku tagay Addis Ababa socdaalkiisa Ethiopia oo ah mid aan war badan laga baahin ayaa la sheegay inuu ahaa mid horey u sii diyaarsanaa oo ay ka shaqeeyeen Abu Dhabi iyo Tel Aviv waxayna Addis Ababa iyo Hargeysa ku balameen in si rasmi ah loo fuliyo heshiiskii is-afgaradka waa midkii MOU-gu Muuse Biixi ay kala saxiixdeen labada dhinac 2 sano ka hor 6 maalin ka hor waxaa safar aan xogtiisa hore ee dama aan la shaacin oo degdeg ah Addis Ababa ku tagay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud sidaan ogaanay madaxweyne Xasan oo fahamsanaa in Somaliland wax weyn ka soo socdaan kadib digniino sirdoon oo uu helay yaa Abiy Ahmed kala hadlay midnimada Soomaaliya Ethiopia waxay madaxweyne Xasan ugu laab qaboojisay inay diyaar u tahay inay kala shaqeynayso ajendayaasha doorashada iyo amniga ee Soomaaliya mowqifka Ethiopia iyo aamusnaanta diblomaasiyadeed kadib aqoonsiga Somaliland Israa'iil siisay Ethiopia waxay qaadatay istaraatiijiyad ay ku dheelitirayso danaha ay ka leedahay badda iyo xiriirka ay la leedahay Soomaaliya inkastoo ay Somaliland u balan qaaday aqoonsi marka dib loogu laabto MOU-gii haddana kuma dhaqaaqin talaabadaas kadib cadaadis caalami ah oo Addis Ababa qabsaday darteed Ethiopia waxay hadda ku jirtaa xaalad ah eeg oo sug kadib markii Israa'iil aqoonsatay Somaliland waxaa soo baxaya in Abiy si weyn uga fakarayo inuu raaco Netanyahu ku dhawaaqo dhaqangalka MOU-gii maadaama aan lahayn meel uu si rasmi ah uga noqday ahaatee Ethiopia ayaa culays labaad kala kulmaysa oo kii hore ka xoog badan dalalka Afrika midowga Yurub Sacuudiga iyo Turkiga ana markaan dhexda xiisada Somaliland u taagan Jamhuuriyadda Djibouti oo muhiim u ah Ethiopia waqtigan inkastoo si weyn loo xoojinayo in Ethiopia aqoonsanayso Somaliland haddana ilaa hadda lama hayo xaqiiqo dhab ah oo rumaynaysa jiritaanka warkaas